Poland ama Booliska ama Jamhuuriyadda Poland waa waddan ku yaala bartamaha Yurub. Dalka Jamhuuriyadda Poland waxa uu ka mid yahay wadamada qaaradda Yurub, gaar ahaan kuwa dhaca bartamaha. Waddanka Poland waxa uu xuduud la leeyahay Lithuania iyo Kaliningrad Oblast ee Ruushka. Waqooyi bari, Belarus iyo Ukraine ayaa iyana ka xiga dhanka bari. Slovakia iyo Czech Republic ayaa iyagana xuduud waxay kala leeyihiin dhanka koonfureed. Sidoo kale, Jarmalka ayaa waxay xuduud kala leedahay dhanka galbeed. Caasimadda dalka Poland waxaa loo yaqaanaa Warsaw. Bedka uu ku fadhiyo dalka Jamhuuriyadda Poland waxaa lagu qiyaasaa 120,728.35 mayl laba jibaaran, taasoo u dhiganta 312,679 oo kiiloomitir iskuweer ah. Qiyaas ahaan, baaxadda dalka Poland waxa uu ku dhow yahay bedka uu ku fadhiyo gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka. Dadka ku dhaqan Poland waxay tiradoodu ka badan tahay 38 milyan oo ruux, waana tirakoobkii la qaaday ama la sameeyay sanadka markuu ahaa 2014. Sidoo kale, saadaasha reer Poland ee sanadka 2050 waxaa lagu wadaa inay hoos uga dhici doonto 33 milyan oo ruux, taas oo ka yar tiradii 2010. Dadka Poland 5 milyan oo ruux. Luqadda lagaga hadlo dalka Poland waa luqadda maxalliga ee Boolishka ama loo yaqaan Sidow. Dadka aqoonta leh ee u dhashay dalka Poland waxa ay gaarayaan 99%. Diimaha ay kala haystaan dadka reer Poland waxaa ka mid ah diinta Kirishtaanka, gaar ahaan madhabta kaniisadda Roma ee Kathoolika, taas oo ay haystaan dad gaaraya 95%, oo 75% ka mid ah ay ku nool yihiin dhinaca bari ee dalka. Madhabta Orthodox iyo Protestantiga oo lagu daray diimaha kale ay dadka haystaan ayaa waxay gaarayaan 5%. Cimriga ragga reer Poland waxay gaarayaan 69 sano, halka dumarka Boolishka ay da'doodu gaarayso ilaa 77 sano. Dowladda dalka Poland waxay u shaqeysaa nidaamka jamhuuriga ah, taasoo loo yaqaan Government Type Republic. Lacagta laga isticmaalo dalka Poland ayaa loo yaqaan zloty, taasoo loo soo gaabiyo XL. Warshadaha dalka Poland waxaa lagu farsameeyaa alaabo badan, taasoo ay ka mid yihiin dhuxusha, dhagaxda, kiimikooyinka, dhismaha maraakiibta, cunto diyaarinta, birta, khudradaha, sharaabka iyo dunta. Jamhuuriyadda Poland waxaa lagu beeraa dalagyo ay ka mid yihiin khudaarta kala duwan sida qamadiga, baradhada iyo miraha. Dhinaca kale, dhanka xoolaha, dadka Boolishka u dhashay waxa ay dhaqdaan khansiirka iyo digaagga. Kheyraadka dabiiciga uu leeyahay dalka Poland waxaa ka mid ah macdanta, dhuxusha, dhagaxaanta, gaaska dabiiciga ah oo loo yaqaan natural gas, sulfur, copper iyo silver, lead iyo cusbada. GDP-ga ama wax soo saarka gudaha dalka ee Poland waxaa lagu qiyaasaa 635 bilyan, qiyaas la sameeyay sanadkii 2021. Madaxweynihii ugu horreeyay ee soo mara dalka Poland wuxuu ahaa Gabriel Narutowicz. Waxaa loo dhaariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Poland 11 Diseembar 1922. Narutowicz waxaa la dilay 16 Diseembar 1922. Madaxweynaha hadda talada haya waa Andrzej Sebastian Duda. Waa qareen iyo siyaasi reer Poland ah, kaasoo soo qabtay xilka madaxweynaha Poland tan ilaa 6 Agoosto 2015. Ka hor inta uusan noqon madaxweyne, Andrzej Duda wuxuu ahaa xubin ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka laga soo bilaabo 2011 ilaa 2014. Waxaan jeclahay inaan halkaas aan kusoo gabagabeeyo warbixintii gaabneed ee ku saabsaneyd waddanka Poland. Haddii ay tahay markuu horeysay aad soo booqatay channelkeena, fadlan subscribe, share iyo like. Waa mahadsantahay.